munaasabad xariga lagaga jiray xafiiska cusub ee wakaalada qaranka Soomaaliyeed ee Sona ayaa maanta ka dhacday xarunta baarlamaanka Jubbaland ee magaalada Kismaayo waxaana ka soo qayb galay munaasabada wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland agaasimaha TV-ga Jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya agaasimaha waaxda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga wasaaradda warfaafinta Soomaaliya agaasimaha guud ee wakaalada wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona iyo ururada dhalinyarada ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay agaasimaha guud ee wakaalada wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Cadaala wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in wakaalada wararka Sona ay xafiis ku yeelato maamulka Jubbaland inaan u joogno magaalada Kismaayo munaasabada xarika jarka xafiiska wakaalada wararka Soomaaliyeed ee Sona Jubbaland mudane wasiir iyo agaasimaha guud iyo dhammaan mas'uuliyiinta halkan joogta waxaan aad iyo aad kaga mahad celinaynaa fursadan qaaliga ah waxaan rajaynaynaa in halkan maanta uu ka bilowdo safar waqti dheer socon doona kaasoo u sahli doona in macluumaadka rasmiga ah ee ka jirta Jubbaland ay dunidu ka heli doonto wakaalada wararka Soomaaliyeed ee Sona taasoo soo afjari doonta waqti maaragtay ku dhawaad 30 sanadood ah oo xogta laga helay dalka Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanadan aysan jirin meel adduunyadu ay ku kalsoon tahay oo laga xigto waxaan rajaynaynaa marka in furista xafiiskani ay inoo sahli doonto in war urursan oo xaqiiqada ku saleysan laga helo deegaanadan sidoo kalena ay fursad u noqon doonto saxafiyiinta jooga gobolada Jubbaland in iyaguna ay si sahlan ku heli doonaan wararka dalka intiisa kale ka jira sidoo kale waxaa isna munaasabada ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlaawi waxaana hadaladiisii kamid ahaa alxamdulillah mudane wasiir iyo mudanayaal aniga ku hadlay magaca wasaaradda warfaafinta federaalka mas'uuliyintooda wasiirka dowladda iyo wasiir ku-xigeenkaba waxa farxad iyo muhiimad noo ah inaan maartay maanta halkan ka furno xaruntii wakaalada wararka Soomaaliyeed ee Sona oo runtii muhiim u ah xiriirka labada wasaaradood federaalka iyo magaranaysa Jubbaland warbaahinta qaranka runtii waxa hormuud ah wakaalada wararka Soomaaliyeed ee Sona sida la socotana wakaalada wararka Soomaaliyeed ee Sona waxa la aasaasay sanadkii 1964 waa wakaalad aad u facweyn gobolada dalkana waxay ku lahayd xafiisyo aad u waaweyn ayada ayaana mas'uul ka ahayd federaalka marka laga hadlayo arrimaha wararka iyo waxyaabaha xuseeya marka mudane wasiir booqashadeedu intaas la xiriirtay waana ka mahad celinaynaa runtii ilaa xalay soo dhaweyntii gaar ahaaneed oo naloo sameeyay aniga iyo tiimkii wafdiga wasaaradda waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo waa markii ugu horeysay oo muddo 25 sano ah oo markii ugu horeysay oo wakaalada wararka Soomaaliyeed Sona laga furo halkan tan iyo burburkii ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan wuxuuna sheegay in ay guul tahay burburkii Soomaaliya dhowr 20 sano kadib in wakaalada qaranka Soomaaliyeed ay xafiis ka furto magaalada Kismaayo salaan kadib waxa farxadii ah runtii waan faraxsanahay waxa farxadii ah in maanta xilligii burburka kadib ee xafiis wakaalada wararka ee Sona ay leedahay laga furo dowlad goboleedka Jubbaland waxa kale oo mar guul noo ah dowlad goboleedka ugu horeeyay ee xafiiskaas laga furno in aan anaga nahay runtii warar badan oo waxa jira iska sii daayaan wareeyaasha oo hadii hadhow la weydiiyo xagee ka soo xigtay la dhahan oo meel sheegi karaan lahayn meesha ka soo xigtay iyo xaggan ka soo xigtay oo sadii karan wakaalada wararka ee Sona waa wakaalad warar oo Soomaaliya ay lahaan jirtay sidoo hadda sheegay agaasimaha guudna 64 la aasaasan filaya soo saas ma runtiina waxay dalka Soomaaliya u qaban doontaa wax aad iyo aad u balaaran anaga ka Jubbaland ahana waxa naga go'an ka wasiir ahaan booliska wasaaradana ah in la hormariyo warbaahinta Zakariya Cabdiqaadir Karazai TV-ga caalamiga bulsho magaalada Kismaayo